Bagong uri ng coronavirus. Umakyat na sa halip. Positibo sa isang uri ng coronavirus ang isang batang Chinese na viral outbreak of the new coronavirus spiked to 80 as the hard-hit epicenter Hubei suffered 24 new fatalities overnight, while total confirmed cases across China Yet more measures to curb the spread of the coronavirus outbreak. Everyone entering the base. Muxuu yahay cudurkan ay warbaahintii caalamka oo dhan ee hadal hayaan dunidii oo dhan ka qaylisiyay arinta argagaxa la yaabka iyo amakaaga leh ayaa ah in cudurkan lagu kala qaadi karo neefsashada iyo taabashadaba haddii qof qaba cudurkani aad gacantaada ku taabato meel ka mid ah jirkiisa kadibna aad gacantaada saarto meel ka mid ah jirkaaga sida afka sanka iyo indhaha khalaas sidaas ayuu kugu gudbay fayraskan haddaba aan u nimaano dalka Shiinaha oo fayraskan farabaan ku hayay muddooyinkii ugu dambeeyay caasimadda Wuhan waa magaalo aad u weyn magaaladan waxa ku nool dad lagu qiyaasay 12 milyan oo ruux Wuhan waxay caasimad u tahay gobolka Gobe waana magaalo waxbarasho iyo ganacsi haddaba sidaan ognahayba magaalada Wuhan toddobaadkii la soo dhaafay waxa Wuhan ka dilaacay xanuun aad u daran oo dad badani ay ku nafwaayeen xanuunkaasina waa fayraska loo yaqaano coronavirus dawladda dalka Shiinaha waxa ay amar ku bixisay 14 magaalo oo ka tirsan gobolka Gobe in dadka ku nool goobahaasi ay yareeyaan isku socodka waxa gabi ahaanba la joojiyay dhamaanba isku socodka gaadiidka sida basaska tagaasida iyo tareenada waxa sidoo kale dhamaan bay cidla ah wadooyinka waaweyn ee caasimadda Wuhan muxuu yahay fayraskan faraleeqaadka noqday ee lagu magacaabo coronavirus sida ay ka waramayaan dhakhaatiirtu waa fayrus ku dhaca xoolaha iyo dadkaba fayraskani waxa uu ka yimaadaa hidaha ama hidisidaha loo yaqaano ribonucleic acid RNA waana xanuun aan noociisa oo kale hore aan loo arag mana jirto ilaa iyo hadda warbixin dhammaystiran oo qaaxaysa sida xanuunkan halista ah looga hortagi karo sidoo kale mana jirto magac gaar ah oo loo bixiyay xanuunkan kaliyaata aan ka ahayn coronavirus xaaladii u horeeyay ee xanuunkan keenay waxa la sheegay in uu xanuunkani uu ka soo bilaabmay dad ka shaqeeya ama booqda goobaha suuqyada xoolaha lagu iibiyo gaar ahaan suuqyada magaalada Wuhan waxa gabi ahaanba ay dawladda Shiinaha amar ku bixisay in la xiro suuqyadaas si baaritaan caafimaad loogu sameeyo suuqyada haddaba suuqa lagu tuhunsan yahay in xanuunkan Dilaaga noqday uu ka soo bilaabmay ayaa lagu iibin jiray kalluunka shimbiraha daauska iyo abeysooyinka iyo waliba hilibka geela si waxa shaki weyn laga qabaa qof dumar ah oo cuntay isla markaana cabtay hilibka iyo maraqa shimbirtan habeenkii duusha ee loo yaqaano fiidmeerta ay dadka qaarna u yaqaanaan kibiliga fayraskan halista ah ee loo yaqaano coronavirus ayaa waxa uu saameeyay dhowr watan oo ka baxsan dalka Shiinaha waxaana dalalkaasi ka mid ah Singapore Thailand Finland Taiwan Nepal dhamaantoodba waxa ay daris leeyihiin dalka Shiinaha sidaas oo kale kiisas cudurkan coronavirus la xiriira ayaa laga helay wadamada United States Arab Australia France Ethiopia halka ay wadamo kale oo Yurub ah ay baaritaano ku sameynayaan dadka ka imanaya dalka Shiinaha Somaliland oo ugu dambeysana waraaq ayay ka soo saartay cudurkan halka dalka Kenya ay iyaduna wato baaritaano ku aadan dadka ka imanaya dalka Shiinaha bal aynu eegno astaamaha cudurkan caalamka oo dhan ka qaylisiyay indha yartiina u diiday in ay neefsadaan shaqaystaan safraan iyo hilib ay cunaanna warkiisa badaaye qofka marka uu ku dhaco cudurkani waxa ay qaadataa in la garto in uu hayo cudurkan muddo dhan 14 cisho iyada oo qofka lagu arko astaamahan soo socda dareere aan joogsi lahayn oo sanka ka yimaada qufac joogto ah dhuunta oo qofka xanuunta xumad aad u daran madax xanuun iyo sidoo kale qofka oo ku adkaata in uu neefsado dawladda dalka Shiinaha ayaa ku dadaalaysa sidii ay ugu hortagi lahayd xanuunkan toddobaadyadii ugu dambeeyay faraleeqaadka noqday iyadoo sidoo kale wacad ku martay in ay muddo 10 cisho gudahood ah ay ku dhisi doonto cisbitaal weyn si cisbitaalkaas loogula tacaalo dadka uu xanuunkan soo rito ugu dambeyntii arinta argagaxa leh ayaa waxa ay tahay in xanuunkan lagu kala qaadi karo neefsashada iyo taabashadaba haddii qof qaba cudurkani aad jirkiisa taabato amaba meel uu taabtay aad adiga gacantaada saarto amaba aad ku taabato gacantaada kadibna aad saarto afkaaga sanka amaba indhahaaga sidaas ayuu kugu gudbayaa fayraskan Dilaaga noqday ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka qaylisiyay dadka ku nool Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ee caasimadda u ah gobolka Gobe ee loo yaqaano coronavirus magaalada waxa xidhnayd ilaa 23 bisha January ilaa imika way xidhan tahay xaaladda guud ee magaaladu waa sidii hore oo waxa weeye isbitaaladu waxay la tacaalayaan patienteeda cudurkan soo ritay waxa weeye maanta Chinese waxay sheegeen inay dhameystireen isbitaalkii ay
qoondeeyeen inuu qaado beeshantiyada cusub 1200 oo qof ay u qoondeeyeen in isbitaalkaasi qaado xaaladeeda guudna wallahi way degan tahay mana jiro qof Soomaali ah oo ilaahay ma kala sheegay inuu cudurku ku dhacay waana nabad qabnaa Soomaalida horta meesha ay jooga waa ilaa ku tameeyo qof oo kala dhigta jaamacado kala duwan iyo meelo kala duwan jooga waxaanay u badan yihiin Soomaali kala duwan oo waxa weeye wadamo kala duwan ka timi haddii aan ku sheego Soomaalida ka timi wadanka Soomaaliya aan anagu ka mid ahay waxaan la xiriirnay safaaradda dawladda Soomaaliya ku leedahay magaalada Beijing iyo Ministry of Foreign Affairs ka Soomaaliya liiskayagana waan u gudbinay xaaladdeena iyaga nala socodsiinaya kolba wixii soo cusbaanaada iyo iskuulada ay ardaydu joogaan iyo authority-ga Chinese-ka magaalada jooga ayda aan qabno qofka taawada wuxuu ka warwarayaa sidii qofka kasta oo adduunka jooga inuu cudurkan soo gaaro cabsideeda gaar ahaan aniga haysana waxa weeye maadaama aan ahay qof dhakhtar ah waxaan aad uga cabsi qabaa inuu cudurkan gaaro wadankaygii hooyo maadaama uu wadanka Soomaaliya ama guud ahaan deegaanada Soomaalida ay xiriir fiican ama xiriir aad u dhow la leeyihiin wadanka Shiinaha waxa weeye taasa cabsida jirta ay tahay